وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودروستي أنكو قادنيني قصص في القرآن الكريم. waxaan maanta ka warramaynaa dhowr qiso oo ku jirto qisadii asxaabul acraaf. waxaan horeysiinaynaa qisadan uu sheegay imaamul mufassiriin ibnu jariir at-tabari. waxaa jiray buu yidhi laba nin oo mu'min iyo kaafir ah. labada nin waxay ku shariikoobeen ay shirkad ku ahaayeen tijaaro iyo ganacsi. lacag badan bay ka heleen, faa'iido badan lagu tiriyo ilaa 8,000 oo diinaar baa lagu tiriyaa. midkood wuxuu ahaa mid xirfad leh ayuu ahaa, waa ka kaafirka ah. xirfad buu yaqaanay, shaquu yaqaanay. ka kale lacagtiisu u dhiibtay ahayd. waxa uu ku yidhi maalin maalimaha ka mida kii kaafirka ahaa kii muslimka ahaabaa waxa uu ku yidhi waanu kala baxaynaa, lacagtaada waan ku siin, ku shaqayso. mid walba ha ku shaqaysto, mid walba nasiibkiisa ha qaato, mid walba xooggiisa iyo quwadiisa iyo dhididkiisa wuxuu kasbado ha cuno. sidii bay yeeleen, lacagtii bay kala qaybsadeen. mid walba waxaa ku soo hagaagay 8,000 buu ahaa. mid walba 4,000 oo diinaar ayaa ku soo hagaagay. ninkan xirfada le ee kaafirka ah 1,000 diinaar baa waxa uu ku iibsaday aqal aad iyo aad u weyn oo nin boqori uu lahaan jiray uu ka dhintay ayuu 1,000 diinaar dhiibay uu ku iibsaday. kadibna wuxuu u yeedhay kii muslimka ahaa, isagoo u faanaya ayuu u yeedhay. waxa uu ku yidhi kayfa tara haadihi daar, daartan sideed u aragtaa? waxaan ku iibsaday 1,000 diinaar baan ku iibsaday. waxa uu yidhi kii muslimka ahaa maa axsanahaa, daartan maxaa ka fiican? kadib markii uu baxay kii muslimka ahaa uu ninkaa ka ag baxay, aqalkiisii buu tegay, uu iska cibaadaystay, salaatuleylku habeenkii u kacay. kadibna 1,000 diinaar buu soo saaray, hortiisuu dhigay. wuxuu yidhi ilaahayow saaxiibkay 1,000 diinaar ayuu daar ku iibsaday, daar adduuna oo laga tegayo. anna 1,000 diinaar ayaan rabaa ilaahayow inaan ku iibsado daar aakhiro aan ku iibsado. ilaahayow iga aqbal. subaxdii markuu sara kacay 1,000 diinaar buu qaaday, masaakiinta iyo fuqaraada iyo dadkii baahnaa buu qaybiyey, uu sadaqaystay.
bal tu'thiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun wa abqaa. ilaahay waxa uu leeyahay daartan adduun ayaad door bidaysaan, daarta aakhira baaqiya. maalimaa wareegay muddo kadib ninkii kaafirka ahaa ayuu u yeedhay ninkii mu'minka ahaa buu u yeedhay. kaafirkii baa u yeedhaya. waxa uu ku yidhi kaalay. wuu u yimid. waxa uu ku yidhi gabadh baan guursaday, waa kan 1,000 diinaar oo kale ayaan gabadhan ku guursaday. gabadh qurux badan, wax taqaana. gabadha quruxda badan waxaan ku guursaday 1,000 diinaar. adu maxaad haysaa buu ku yidhi. wuxuu yidhi anu 1,000 diinaar baan sadaqaystay, aakhiradayda u qadintay. uu ku dheeldheelay aakhiro, isa soo saar, qiyaamo, waxaan aad sheegaysid waxba kama jiraan buu ku yidhi. noloshan adduunka waa la iska reexaysanayaa, waa maalimo gaaban, ee waxaan hanagu wareerinin aakhiro iyo ila soo saari, qiyaamo inuu jiro. waxaasi waa sheeka baraley buu yidhi. iska guurso, iska reexayso nolosha adduunka intan aad nooshahay buu yidhi. casuumad buu u sameeyey, wuu cunteeyey. kadibna ninkii muslimka ahaa, mu'minka ahaa, wuu iska noqday. gurigiisii buu ku noqday. habeenkii salaatuleylkii markuu tukanayey baa waxau idhi ilaahayow, ninkii saaxiibkay ahaa ee shariigaygii 1,000 diinaar buu ku guursaday gabadh qurux badan. aniguna ilaahayow 1,000 diinaar ayaan rabaa inaan ku guursado gabadh xoorciina, inaan ku guursado aakhiro. ilaahayow iga aqbal. subaxdii buu saro kacay. kadibna masaakiinta iyo fuqaraada iyo dadka baahan iyo agoonta ayuu u qaybiyey lacagtaas. muddo kadib ninkii kaafirka ahaa ee xirfadda yaqaanay wuxuu iibsaday 2 beerood buu iibsaday. wuxuu ku iibsaday 2,000 oo diinaar buu ku iibsaday. lacagtiisii oo dhan way dhammaatay. ninkii muslimka ahaa buu u yeedhay. waxa uu ku yidhi 2 beerood ayaan iibsaday. 2 beerood waxaan ku iibsaday 2,000 ee diinaar ayaan ku iibsaday buu yidhi. waxa uu yidhi, waxaa odhanaya ninkii kaafirka ahaa ayaa odhanaya, adiguna waxaad odhan doontaa jannaan iibsaday, xooriciin baan iibsaday ayaad odhan doontaa. sida awgeed warniyahow, jannaha nagu wareerini iyo waxaan jirin iyo aakhiraha nagu wareerin, ee waxaad yeeshaa adduunkaagan iska reexayso inta aad ku nooshahay, wax iibso. ninkii mu'minka ahaa waxa uu sameeyey 2,000 oo diinaar buu soo saaray. waxa uu yidhi ilaahayow, saaxiibkay 2,000 ee diinaaree u hadhay 2 beerood buu ku iibsaday. aniguna 2,000 waxaan rabaa inaan ku iibsado beero jannada ah. sidii buu yeelo masaakiintii iyo fuqaraada ayuu qaybiyey. muddo kadib 2 nin way dhinteen. aakhiraa la tegey. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka warramayaa. wuxuu ka warramayaa kii mu'minka ahaa oo janno galay, oo reexaysanaya, nimcaysanaya, wanaag iyo khayr iyo bashbash iyo barwaaqo ku nool, iyo kii kale oo naarta ku jira. ilaahay waxa uu yidhi isaga oo ka warramaya eelu jannaha, ilaahay waxa uu yidhi faaqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun. dadkii eelu jannihii way isqaabileen, way iska hor yimaadeen, way wala sheekaysanayaan adduunkii iyo waxay ka sheekaysanayaan wixii jiri jiray. faaqbala bacduhum
calaa bacdin yatasaa'aluun badhba badhkood ayay isweydiinayaan, way iswaraysanayaan, way sheekaysanayaan. jannoy maxaa kaa fiican? waa mid ilaahay diyaariyey. mid eelu jannihii ayaa warramaya, waa ninkii mu'minka ahaa ee adduunka soo iibsaday 2 beerood, soo iibsaday xoolacayn, soo shaqaystay, khayr badan soo adeegtay. isagaa warramaya. dadkii kale eelu jannaha ayuu u warramayaa. qaala qaa'ilun minhum, mid iyakii ka mida hadlo waxa uu yidhi, innii kaana lii qariin, adduunkan waxaan ku lahaan jiray saaxiib. yaquulu wuxuu igu oran jiray qariinkaasi, a innaka la min almusadiqiin, aduma waxaad tahay dadka rumaysanaya, a idaa mitnaa marka aan dhimanno, wa kunnaa turaaban aan ciid noqonno, a innaa lamadiinuun, ma dib baana loo soo celino, arladanaana lagu soo celin. war mayaad maxaa kaa siiya? ma marka aan dhimanno aan dib u soo noqon oo nala soo celin, ma waxaasaad rumaysan tahay buu igu oran jiray. ninkii xagguu ku dambeeyey talow? waa inaan raadiyo. qaala hal antum muطalicuun, ma i raacaysaan buu yidhi ninkii han raadinna eh. ibn cabbaas waxau yidhi daaqad buu ka furanayaa jannada oo naarta uu eegayo. faطalaca fara'aahu, wuxuu ku arkay fii sawaa'i aljaxiim, naarta jaxiima bartankayga isagoo oo ku jira, oo cabaadayo, oo la garaacayo, oo gubanayo, oo qiiqa ka baxaya aad malaynayn ayuu arkay. naarta jaxiima bartanka isagoo ugu jira. kii mu'minkaa markuu arkay wuu farxay, ilaahay baa soo badbaadiyey. isagoo oo la hadlaya waxa uu yidhi, qaala tallaahi, ilaahay baan ku dhaartee, in kidta waxaad u dhowaatay la turdiin, inaad i halaagtid anigana, saad iigu celcelinaysay inaad ishaki gelisid ayaad u dhowaatay. walowlaa nicmatu rabbii, ilaahay nicmadiisu haddayna i heleelin, lakuntu min almuxdariin, aniguna meeshaasaan kula soo geli lahaa, naartaasaan kula soo geli lahaa, xaggaasaan ku baabi'i lahaa. laakiin ilaahay nicmadiisii baa i haleeshay, ilaahay baa igu sugay diintii, ilaahay baa islaamnimadii igu sugay, ilaahay baa i adkaysiiyey. afamaa naxnu bimayitiin, maanta ma nihin wixii maanta dib dambe uma dhimanayno. afamaa naxnu bimayitiin, dib dambe uma dhimanayno, ilaa mawtatana aluulaa, dhimashayadii hore mooyaane. wamaa naxnu mana nihin bimucadabiina, qaar la cadaabaya ma nihin. ilaahay waxa uu leeyahay, inna haadaa, arrinkaasi, lahuwa alfawzu alcadiim, waa guusha weyn ee dhabta ah. ilaahay waxa uu leeyahay, limili haada, dadow taas oo kale, falyacmal alcaamiluun, dadka shaqaysanaya taasoo kale ha u shaqaystaan. axibatii fillaah, ayadaha waxaan ka fahmaynaa in jannadii iyo naartu ay jiraan oo ilaahay u abuuray, oo jiraan imikada aan joogno. waxaan ka fahmaynaa qofka mu'minkii inuu is-ilaaliyo mar walba. saaxiibka xumi uu ku halaagi, khatar buu ku gelin, aakhiradaaduu ku seejini, waa magac xun, waa sharaf xun. sida awgeed ka digtoonow, mar walba qofka xun ka digtoonow. qaybta labaadii waa asxaabu alacraaf, waa kuwii derbiga kor taagnaa ee camalkoogii wanaagga iyo xumaantii uu sinaaday weeyaan. ilaahay waxau leey, wa baynahumaa xijaab, ehlu jannada iyo ehlu naarka xijaab baa u dhaxeeya, derbi, suur baa u dhaxeeya, gidaar weyn baa u dhaxeeya. wa cala alacraaf, waa raggii marka derbigaa kor taagnaa, rijaalun yacrifuuna, way garanayaan buu ilaahay yidhi, kullan, dhammaan ehlu jannaha iyo ehlu naarka intaba way garanayaan. maxay ku garanayaan? bisiimaahum, astaamahooga iyo calaamadahooga. marka dhinacan midigta eegaanay arkaan ahlujannaha iyo wanaagga iyo wejigooga siduu u nuurayo, nimcadda ay ku jiraan, khayrka ay ku jiraan, way ku garanayaan. ehlu naarka markay arkaan madowgooga iyo garaaca iyo cabaadka ka dhacaya way garanayaan. yacrifuuna kullan, dhammaan way garanayaan, bisiimaahum, wejiyaashooda ku garanayaan. ilaahay waxa uu yidhi, wanaadow, way dhawaaqayaan,
أصحاب الجنة أصحاب الجنة هي إيجيان وأدواقيان حاجة سأجيدين مركي هربا أصحاب الجنة حقوا أدواقيان محيلي أن سلام عليكم نبتجري كركينا هاتو وانا كركينا هات وخير كركينا هات بدبادة كركينا هات إلهي وحول لم يدخلوها ميقلي وهم يطمعون ويطمعيان إن الجلان ويجري دونان وهم قريين يان شنضاسي وناقاس إن الجلان لكن ميقلين بإلهي لي مركب إلي شنه إيجيان ويسلاميان سلام عليكم نبتجري كركينا هات وجهوغي نوركي iyo udgoonka iyo quruxda iyo nimcada ay ku jiraan bay arkayaan ilaahay waxa uu leeyahay wa idha surifat marka la leexiyo absaaruhum aragoogi wajhoogi baa la leexinaya tilqaa ashaab an-nar dhinaca iyo ehlu naarka loo leexinaya wajhoogi eega la leekuwa marka arkaan naarti iyo silsiladaha iyo garaaca iyo biyaha kul iyo cabaadka iyo waxa dhib jira ay waxay qaalu rabbana ilaaha yagiyo la taj'alna hanaga yeelin ma'a alqawmi adh-dhalimin qawmka dhaliminta macooga ilaahu hanaga dhigi beelay ilaahay waxa uu leeyahay wanaada way dhawaaqeen marka ashaabul a'raf rijal ragba u dhawaaqeen yaarifunahum ay garanayaan way garanayaan rag bay garanayaan oo naarta ku dhex jira أبو جهل وأمية بن خلف أبو لهب عقبة بن رجب كجرة رجي ووينا أيا كجرة وأود واقيا ويقرنيا يعرفونهم بسيماهم على مدهوج كقرنيا استامهوج قالوا وحي كل يهين ما أغنى عنكم جمعكم وحبا إني ميترين وحيا أورورين السين مالكي أولادي فربنديني قال لماذا ما أغنى عنكم جمعكم waxba inii jirin aawe maalkii faraha badna aawe farabadnidii aad ku faanayseen aawe wixii oo dhan waxba inii qaban wama kuntum tastakbirun ya wixii aad ku weyneyseen oo dhan oo isla kibrinayseen oo dhan waxba inii qaban markaas eegayeen eelu janna waxay leeyihiin eelu janniyo nimcaysan bilaal iyo ragii baa ku jira ay garaaci jireen aha ulaa'i alladina aqsamtum كوني مكوي مين أهين أتكون دارتين لا ينالهم الله برحمة إننا إلهي نعمدي خير يجنئي وناقي إننا إلهي سينين مين أهين كوي أتكون وحال يقول لي هي وكوي كواسي وكوي الغيري ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون جنة قلع عبسي إني مسجنا مروق إني مسجنا وناقي خير بإني سجن marka ugu dambaysa ashaabul a'raf jannada galayaan bifadlillahi wa birahmatihi ay jannada ku galayaan ahibati fillah kooxda saddexaad ilaahay inooga waramay maalinkaasi qisadooda inooga waramay wa ashaabun naar oo u dhawaaqaya ashaabul jannah maxay leeyihiin ilaahay waxa uu yiri wanaada way dhawaaqeen ashaabun naar kuwii naarta galay ashaabul jannah ay u dhawaaqayaan way gubanayaan way cabaadayaan way rafaadsan yihiin way silicsan yihiin oohin way ka dhamaatay hoog iyo balaambal iyo wax walba eelu jannaha ay u dhawaaqayaan waxay leeyihiin an afiidu calayna min almaa wa in rabbi anoo soo daadiya aw mimma razaqakum allah ama waxa faraha badan ilaahay inisiye khudrada iyo cuntada iyo wanaagaas wuxuu soo daadiya wuxuu nasiya wadna garanaysaan waan baaba'nay waan balaabalnay bal in yar naga naxa kuwii mu'miniinta ee jannada galay waxay ugu jawaabayaan ahli naarkii qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu jannihi inna allaha ilaahay xaramahuma labadaa wuu ka xarimay cunto iyo cabisba cala alkaafiriina kuwa gaaloobay kuwee weeyaan aladiina ittakhaduu diinahum lahwan walaciban kuwii diintooda ciyaar ka dhigtay waqarrathum alxayaatu addunya ee noloshan adduunkii ay kadisay falyawma maanta nansaahum waanu iloobi
kamaa nasuu siday u iloobeen liqaa'a yowmihim haadaa la kulankooga maanta ah ayaan annaguna naarta ugu iloobaynaa. wamaa kaanuu biaayaatinaa yajxaduun, iyo aayaadka yaga siday uga gaaloobayeen ee u inkirayeen ayaa naarta lagu tuuri oo naarta lagu iloobi. axibbatii fillaah, qisaskaasuu ilaahay inooga warramayaa maalinkaasi qiyaamaha ay sheekaysanayaan ahlu jannihii iyo ahlu naarkii iyo asxaabu alacraaf ay sheekaysanayaan. waxaan ka faa'iidaysanaynaa jannada iyo naarta waa la diyaariyey. cadaala ilaahiya ayaa jirta meeshaasi, miisaan ayaa jirta. axibbatii fillaah, naxariista ilaahay way ballaadhan tahay. asxaabu alacraaf naxariista ilaahay ayaa heleelaysa. ilaahay maalinkaasi addoommadiisa wuxuu ugu naxariisanayaa 99. ilaahay 100 naxariisa ayuu abuuray. mid buu ilaahay adduunkan u soo dejiyey, taasaan iskugu naxariisanaynaa. ilaahay wuxuu reebtay 99 naxariisood, taasuu addoommadiisa maalinka qiyaamaha ugu naxariisanaya subxaanahu wa tacaala. qiso kale ayaa inoo soo socota in sha allah. la socod wacan. wajazaakum allahu khayran. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.